caruurtii aabahood intay ka maqan yihiin casriyadan u sameey maasha Allah tabaarakallah buskud aad u jilicsan iyo doorsho isbuunya ah oo si fudud u sameeynay daawasho wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kusoo dhawaada channelkeena farxiya kushiin asxaabta qaaliga ah maanta waxaan rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo doorsho aad u jilicsan isbuunyaha iyo maxaan ku raadaay buskud aad u jilicsan buskudka ayaan ku bilaabanaynaa soo dhawaada daawasho wanaagsan waxaan soo qaatay bakeeri oo sokorta shiidan ayaan baaquli ku shubay kadib waxaan ku darayaa bakeeriga haafkiisa ama hal qaado weyn saa ujeedaanba oo subag ah ama sixin kadib waxaan ku darayaa 2 qaado oo caano booro ah sidaan hadda u qasay hadii u qastid buskud cajiib ah helaysaa insha Allah aad u macaan badan waxaan ku darayaa 2 xabo ukunta ugu yaraan hal xabo waad ku darsan kartaa intaas kadib waxaan ku darayaa qaadada haafkeeda oo baking soda ah baking powder aga bedelkiisa baking soda aga ka fiican buskud markii la dhaho wax yar ku darsaa ujeedaanba kama badinin intaas ku filan kadib si fiican ayaa u qasayaa wax dhan waxaa la rabaa ama makiinada ku shiid ama gacantaada la gal ama birtaas u qaado si fiican u walaaq wax dhan inay si fiican u qasmaan ayaga dhan ay noqdaan la rabaa cream camal ugu horeen hadii aad ku cusubtahay channelka waxaan ka codsanaa subscribe inaad taabatid kadibna gambalelka taawo si muuqaal walba aan soo dhigo kugu soo dhaco insha Allah kadib waxaan ku darayaa hal qaado oo waranga ah warangada bedelkeeda labaniyad waad isticmaali kartaa ama kastar saa u taqaanidba kadib waxaan ku darayaa wax yar oo caano garoor ah wax yar aan ku daraa sida idin muuqato bakeeriga markii 3 meel loo qaybiyo qayb kamid ayaa ku dareysaa intaas kadib si fiican ayaa u walaaqayaa buskudka alaabta la rabo in lagu hagaajiyo waa intaan waxaan filayaa inaad fahanteen insha Allah intaas kadib waxa u baahan tahay 2 koob oo bur ah bakeeriga isticmaalo waa bakeeriga caadiga oo shaaha aan ku cabno burka marka qasaysid inuu ka adkaado lama rabo jilac inaad ka dhigtida la rabaa intaas kadib si fiican ayaa u qasayaa saa u jeedaan hadda aad u jilicsan yahay saa lagama rabo inta u dambeysay ayaan ku soo wada daraa kadibna si fiican ayaa u soo qasayaa hadda markuu waa dareemi kartaan aad u jilicsan yahay saan laga rabo ma fahanteen hore lagama hagaajinayo dabool la saarayaa ugu yaraan 15 daqiiqo ayaan dhigaynaa insha Allah kadib waa ku soo laaban doonaa 15 daqiiqo kadib waa ku soo laabtay waxaan soo qaatay saxankaas oo foornada la gelin lahaa saxanka saliid ayaan mariyay kadibna waxaan ku dadaadinayaa wax yar oo bur ah hadii ay haysan warqada la saaro saas aad u sameeysan kartaa intaas kadib waxa u baahan tahay bacdan waa bacdo maxaan ku raadada keega iyo creamkiisa waxyaabaha lagu sharaxo birtaan hadda koora waxa ka gada online laakiin hadda waxaaba ka heli kartaa supermarketyada laga helaa ama online-yada meesha rabtaa ka gadan kartaa bacdan ayaa u baahan tahay birtaasna way weyn tahay kuwa yar ma ahan intaas kadib bacdi iyo birtii marka sida isu gelisid burkii waa u jeedaan hadda uu yara adkaaday marka hore jilaac oo hayso markaan dhigaynay markii aan dhigaynay hadda isku mid ma ahan sida idin muuqato saan ayaa laga rabaa intaas kadib qaybta labaad waa daboolanaysaa si ay dabeesh u marino kaaga adkaanin kadib saas u tuujinaysaa ballaar weyn ka dhigi kartaa wax yar oo dhuuban ayaa ka dhigi kartaa waa tuujinaysaa markaa tuujisid qiyaasta aad rabtid markaa keentid dheer iyo gaagaab kadib halka ayaa ka jaraysaa hadaa rabtid aad u dheereen kartaa hadaa doontid gaagaab ka dhigi kartaa laakiin qiyaastaas ay u dhaafaysi idin muuqato foornadana waad sii shidanaysaa 200 ayaa u geynaysaa dabkana kor iyo hoos foornada kulul ayaa la gelinayaa ugu yaraan wuxuu ku jirayaa 20 daqiiqo 15 ilaa 20 daqiiqo ayuu ku jiri doonaa insha Allah hadda waxaan aadaynaa foornadii noo kululaatay bismillaahir rahmaanir rahiim foornadan gelinayaa 20 daqiiqo kadib ku soo laabanaynaa foornada kulula gelinaysaa dabkana 200 aad u geynaysaa kor iyo hoos waxaan filayaa inaad fahanteen insha Allah muuqaalka noqdo kii ugu laagta badnaa si idin kugu soo badan waxa waaye 200 ayaan ku aadiisa ujeedaanba diyaar waaye hadda waxaan sugaynaa intuu ka bislaanayo 20 daqiiqo kadib waa ka soo saaray wali weel dabool ayaa ku guranaysaa qabow markuu noqdo waa kaasa ma sha Allah tabarakallah inaba caadi ma ahan jileeciisana lagama sheekeen karo wax adag oo qalafsan ma ahan jileecan ku dhamaan sha Allah tabarakallah ugu dambeyntiisas ayuu ku soo baxay dadkii sheekadiisas ayay ku soo dhamaatay had waxa sameysanaynaa doorshihii asagan isbuuyaha ahaa aad u jeedeen buskudkii waa kaasa xaqiisa la siiyo like ta loo badiyo waa mahadsantiin
doorshaha iyo waxyaabaha aan ka sameyn lahayn. Marka hore waxaan soo qaatay 4 xabo ukun sida idin muuqato baaquliga. Kadib waxaan soo qaatay bakeeriga haafkiisa oo sokor ah, bakeeriga haafkiisa oo saliid ah, bakeeriga haafkiisa oo maxaan ku radaa caano ah. Dhinaca kale waxaan soo qaatay koob iyo bar oo bur ah. Kadib waxaan ku darayaa hal qaado oo baking powder ah. Kadib waxaan ku darayaa qaadada haafkeeda oo vanilla ah ama heel shiidan ayaa isticmaali kartaa. Intaan ayaa isku qasaysaa marka hore oo burka ah. Wixii dhammaanka isku qastid alaabtaan waxaan ku dhahay 1 2 3 ma fahanteen doorsho iska fudud waa qof walba uu sameyn karo. Makiinada soo qaadanaysaa 4 xabo ukunta ayaa ku ridaysaa. Ukuntii markaa ku ridid kadib waxaan ku soo dareynaa sokortii ukunta ayaa marka hore shiidayna insha Allah waa inaad si fiican u shiidid ilaa 2 daqiiqo ayaa shiidaysaa. intaas kadib markuu ku shiidmo waxaan ku soo darsanaynaa maxaan ku raadayay saliidii iyo caanihii. doorshaha haddii asaan u samaystid doorsho wuxuu ku noqonaa asaga isbuunya ah laga sheekeyni karin aad u fudud yahay. kadib caanihii iyo maxaan ku raadayay saliidii markaa ku dartid waxaa sameynaysaa mar labaad waa soo shiidaysaa. wixii dhan mar labaad ayaan isku soo shiidnay sidii muuqato. kadib waxaa soo qaadanaysaa baaquli burkii iyo baking powderkii iyo vanillada isku soo qastay ayaad baaquliga ku shubanaysaa. dabkana waa inaad sii shidatid waxaa u geynaysaa 160 dabka kor iyo hoos. foornada kulul rabaa doorshada in la geliyo. burkii markaad baaquliga ku shubtid waxaad ku daraysaa maxaan ku raadayay ukuntii alaabta isku soo qastay afaarihii soo diyaarisay oo mashiinku aad ku soo shiiday. in yar ayaad ugu daraysaa marka hore marka si fiican u qasto kuskuusmo uusan ka yeelanin oo u jeedaa burku waa adag yahay. si fiican ayaa u garaacaysaa markuu saan u adag yahay waxaa wada si fiican u garaacdid kaama yeelana kuskuusmo iyo waxyaalahaas kaama burlaqmaayo. kadib waxaa sameynaysaa inta kale ayaa in yar ugu soo shubaysaa. had waa u jeedaan burka saas markuu noqday intii u dambeysay ayaa ku soo gadinayaa. ha iloobina muuqaalka inaad like noo saartaan waad mahadsantihiin. kadib waa isku soo qasaysaa si fiican. saas ayaa laga rabaa bur aad u jilicsan inuu ka noqdo lama rabo bur aad u adag inuu ka noqdo lama rabo. intaas kadib waxaan soo qaatay weelkii aan doorshaha ku karin lahaa. waxaan mariyay saliid markaa marisid kadib wax yar oo bur ku daadin kartaa. ugu dambeynta hada diyaar waa foornadan gelinaya 160 dabka kor iyo hoos wuxuu ku jirayaa ugu yaraan 30 daqiiqo. maasha Allah tabarakallah waaw inaba caadi maahan. ugu dambeyntii waa u jeedaan saas ayuu ku soo baxay 30 daqiiqo kadib saas ayuu ku soo baxay lagama sheekeyn karo. qabow ayuu noqday waxaan soo saaranay maxaan ku raadayay alwaaxa sira soo saaray kadib waan soo goynaynaa. doorshaha lagama sheekeyn karo asaga dhan waxaan ku leeyahay isbuunya maasha Allah. dhadhankiisana waxaa waaye caraftiisana lagama sheekeyn karo. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen muuqaalka xaqiisa la siiyo oo like loo badiyo oo sii share gareeya si saaxiibo badan idinka camalan u helno. waad ku mahadsantiin daawashadiina iyo commentiyadiina. maasha Allah tabarakallah. saliida FK hadaadan marsanin saliid wali maad marsanin yaa saliida FK waa saliid qumbe iyo qudaar la isku hagaajiyo. waa saliid waxtar leh quality leh caafimaadkaaga u fiican. timaha jajabka way ka ilaalisaa timaha way dheeraysaa. gabadheedu waxay ahaan jirtay dadka timaha qafiif oo madax laftiisa laga dhex arkaa. yaa abtigeed wuxuu dhihi jiray injir haday gasho madaxeeda meel ku dhuumanayso male warkaasaan ilooweynaa ku dhama fahanteen. waa kaas haddana ugu dambeyntii saliida FK waa saliid la hubo waxtar leh caruur iyo ciroolo qof walba waa loo marin karaa. waa saliid qumbe nadiif iyo qudaar la isku hagaajiyay. waana qiimo macquul jumla iyo tafaariiqna ku bixinaa meel walba aad joogto waa lagu soo dhiibi karaa. telephone number shaashada kaaga muuqdo igala soo xiriir.